نيسو وحمانتي يعني وحياله لياب كلا dadka dhalinyarada ah markay rabaan inay isdajiyaan ama qalbigooda ay dajiyaan qaarkood waxay sameynayaan gabar fanaanada ah ama wiil fanaan ah heestiisa ku tuuranaya qolay inta isku xiraan ayleen maanta qalbigan soo dajinayna aaway alla subhanahu wa ta'ala meeshii uu ugu tala galay qalbi deganaanshaha waa in musxafka uu qaato qofku waa inuu mixraabka yimaado waa inuu masjidka yimaado markaasa qalbigu degaya raaxa abadiyana u heli waliga aan ka gooy laakiin ina tiraahid qalbiga markaan walwal dareemo oo aan walbahaaro nin fanaana ama gabar fanaanada han cajalada ku tooran aad tiraahid waa khasaaro waa saada khayaaliya waa saada wahmiya waa raaxo dhalanteed ah film beenu shaydaan ku shidi dhalanteed wax jira ma waa cadab adiga miskiinka iska dhaafay dadkii fanka dajiyay ama fanka soo alifi jiray xagee ku dambeeyeen dadka fanka dajiyay waxa ugu magac dheer qofkii hadda la dhihi jiray islaantii la dhihi jiray Marlin waa in badan yaani historygeeda waad akhriseen ama googlaha waad ka fiirin kartaan taariikhdeeda Marlin xagee ku dambeysay waxay ahayd yaani fanaanad qof magac weyn leh ayay ahaan jirtay mumathilo weyn ay ahayd laakiin aakhir umrigeedii eeda isdishay waxaan raadinay tirmeel qalbigaygu ku dego markaas nafteedii waxay u furtay yaani waxay ka dhigtay naf ibaahiya wax walbo ilaahay uu xarimay ayay sameysay ayadoo dhahay naftaan raba inaan qanciyo intaasoo aflaamay jiltay intaasoo heesay sameysay intaasay jirkeeda tumasho sameynaysay waxaasoo albaab kasto xaraam ay garaacday ayadoo dhaysa qalbigan u raadinaya nolol wanaagsan laakiin aakhir umrigeedii eeda isdishay maxaa isku diliyay waxay tiraaxan ka waaya adduunka meeshii loogu talagalay kama raadin meeshii loogu talagalay kama raadin maxaa yeelay markii hore waxay tiri buug ay qortana waa jira waxay tiri markii hore hatta raxmadda waalidka ma aanan helin intaan yara raxmadda waalidkayga ma aanan helin maxaa yeelay shahaadatul milaad markii cusbitalka laga soo saarayo warqadii dhalashadaydii waxa lagu qoray tiri waalidkay nin isbitaalka ka shaqeynayay inuu aabba yahay asib beena la igu qoray maxaa yeelay ninka isbitaalka ka shaqeynayay hooyaday waxay tiri yaani guur iguma dhalin tiri markay dhashay ay nin isbitaal ka shaqeynayay wajigiisa jeclaysatay markaas ay tiri gabadhan Marlin adiga aabba oo hay ogaw isaguna iska ka aqbalay baa qof dariiqa iska marayo cunug leeyahay aabbaad u tahay raxmadii waalidka ma laga helay qofkaas ma aanan helin raxmadii waalidka sidaasan ku soo koray tiri anigoo yaani waalid la'aan ku soo koray ka bacdi waxay daryeelay markaan waayay fankan iska galay waxaasi marka iska tubanaysay ka bacdi waxay leedahay waxaan ogaaday in la iga dhiganayo badeeco raqiisa oo qofba intuu cawradayda fiiriyo marka codkayga uu dhageysto qof xataa guur iga damcayo uusan jirin badeeco raqiisa inaan ahay ayaan ogaaday markaas nafteedii ay dishay wahaluma jarra dad fara badan marka meelo xun ka raadiyay saas awgeed dadkan dhahaya yaani heesan ku tuuran si qalbigu ii dego qalbiga kaasi gubanaya ogaw ara ilaahay kugu dhacaysa subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay meel rabbi uusan ugu talagelin saadadii ayad ka raadisay saadadu waxa weeye waa iimaanka iyo taacada iyo dhikriga ilaahay saadadu musxafka ka raadi dhikriga ilaahay ka raadi tawxiidka ka raadi takbiirta ka raadi salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam mubaaraka alayhi ka raadi sadaqada iyo dhikriga ilaahay ka raadi meelahaas ilaahay galiyay raaxada qalbiga ama faqiir noqo ama qani noqo halkaas raaxada rabbi subhanahu wa ta'ala uu galiyay ma aha ulajeedadu dadka fuqarada kaliya inay yaani ayagu ay cibaadeysanayaan bal hatta hadda khudbada waxa ku jiray nin boqora oo la dhigi jiray Harun Rashid dadku waxa laga yaabaa inta badan inay maqleen Harun Rashid waa boqor caadil oo ahaa oo khilaafo weyn haystay muxuu sameyn jiray kaana yusalli fi kulli layla 100 rag'a habeen kasta wuxuu tukan jiray 100 rag'o qofka marka dukaanka yar uu furan yahay ama baqaarka yar uu furan yahay oo dhahay anigu ganacsadaan ahay oo cibaadadii yaani waqti uma hayo waa shaydaan waa bentis khaliifatu rashid Harun Rashid 100 rag'o tukanayo wana madaxweyne
100 ركعة في كل ليلة وتكناي وبين منك بهية إلهي عبادي إنسان فرصة إساقان ربين محايا الإنسان بين توجيهين إما توجيه رباني وإما توجيه شيطاني إنسان كمروا البابا لما هقان أنبوليه هدي إلهي هقان كيسي أتكهرتي وحكو هقامنا يوى الشيطان بس محايا الإنسان مال عدل جوغا يا مجر قف بن آدم مال عدل جوغا يا مجر الإنسان بين توجيهين إما توجيه رباني وإما توجيه شيطاني هدي أمرك إلهي أدون آذن أنغنن وربي سبحانه وتعالى آذن اسكد اللينن وربي أمر كيس آذن قادنن وحد كأمر قادن يسوى الشيطان أمر قادن شو أنبض حيسا أمر ربي كأمر قادن هدى ديدنا الشيطان وحد كأمر قادن يسوى وتكتل قادن يسوى وتكشد القادن يسوى مرة البابا مرك هارون الرشيد ساسو أهانجر سلطنتي سؤال بالله مشغول كأدرين كرتان ولي نك مدحضة حلقاها وخلافة هيستي ما هن صومالي أو كلا حكومية أما سعودي أو كلا حكومية ما هي وحكومية عالم الإسلامي أردن ومدحكاها خلافة معنيه دي وسيداس عالم الإسلامي أردن وكتلنا مع ذلك سيداس ربي وقع عبده سبحانه وتعالى ولذلك وحلقوا دراء دتك السعادة ومالكoodu uusan ka mashquulin siyaasadooda iyo boqortooyadooda aysan ka mashquulin daacada rabbi subxaanahu wa tacaala laakiin haddana waxaa la dhinac dhigaa cabdulmalik bin marwan isaguna khaliifo kale uu ahaa ra'iis weyn uu ahaa xakama hada alcaalam sharqahu wa garbah duulahu wa cardah caalamku isaguna in badan u talin jiray laakiin sida ma ahayn haaruun rashiid oo kale raadkiisana kuma uusan socanin markuu sakaraadku u yimid muxuu yiri wuxuu fiiriyay nin ghasaal ahaa oo meesha dhar ku dhaqi jiray sartiisa hoostiisa dhar ku mayri jiray oo miskiin ahaa miskiinkaasuu daaqada ka fiiriyay markii madaxweynahaas uu sakaraadayay cabdulmalik bin marwan lamandaayo meesha ku dhaqi jiray ninkaa miskiinka ah iska xamaalanayay laakiin rabbigii iska caabuda subxaanahu wa tacaala markaasuu cabdulmalik bin marwan wuxuu yidhi yaa laytanii كنت مثل هذا الغسال يا ليتني لم أعرف الخلافة وحير وان خساري لما دايستها سوك المحان النقم واي محا قورت إيقلي ملحت الملح محان كها يا هول محان كها يا ودلنتات فيلم كينا وودني وحان قلها يانا نولل آن دمات الهي وانا وحبا وديارسن marka maxaan isaga noqon waayo ninka qasaalka ah oo sartayda qasrigeeda dhinacayga dharka ku mayray maalintii iska soo xamaalanahay rabbigina caabudayo subhanahu wa ta'ala waxaan u noqon waayo taswiir lidalika marka السعادة وأهل السعادة ماشى ربي سبحانه وتعالى لذان تؤدقي ربي سبحانه وتعالى الراحة قليي وهالكاس ومحراب كاس ومسجدك ومصحفك وداعة ربي سبحانه وتعالى ولغا هدي الداشد وتصور يكتد مهلا يسيد مالكالي وقلبك وكدقه إلا ماشي ربي سبحانه وتعالى وتلمامي مويه مالي والبواد مغليسان إذا عده واد كمغليسان أما تيفيالك واد كاركتان ضد انتحار اسكو السميناي وإسدلاي مالي والبو إسدلاي وحا هل سنة أو كليقاد الله تيريي إحسائيات لغو سميي صدن كل أوقف إلا إسدلين هل سنة قده بس صدن كل أوقف وقاركود ملياندير وها انتحار أي سميين لماذا ماشي ربي سبحانه وتعالى دقناشها إيا راحة إيا نرشة وناكسن ودقي وعبادتي إيا عملك صالحة إيا طاعتي ربيعة كما يسن رادين كما يسن رادين داد وحا كجر داد كاس قبر يعني تاريخ ذا إيشيغان وحا كجرتي زواجك يعني قورستي دور وضن ركا كلا سعودة روسيا أمريكا سوريا ودم بدن حتى كجورستي وحي كر هذه السعادة دي قلبي دقناشي جورك ولا كلا الدو جنسيات فرا بدن اللي جورستي مركي دم قلوا يد الرأسماليين تكمل هذا قلدي نشوعي جورستي
من شيوعية ولا شيوعيين تلدي ما أقول حتى هوانك إلا خدمة ما أقول قف كان تيجي سياد وحيرايا هوانت حتى إن يعني خادم لا سمي أما جارية قرية أي كنسة ما أقول إذا مليونير هذا الله حيري جارية إن قرية كنسة markay aragtay noloshii ay ciriiri ku noqotay aakhirkii waa isdishay iyaduna intaxaar isku samayso marka qof walba doonayo rabbi subxaanahu wa tacaala sacaada abadiya inuu siiyo waa inuu ka raadiyo taacada rabbi ibraahim ibnu adham raximahu llahu tacaala wuxuu ahaa nin caabid ah ku nool baqdaad dariiqa baqdaad isagoo maraya nin ka hor yimid markaasuu wuxuu yidhi ibraahim ibnu adham oo bal waran markaasuu wuxuu ku yidhi saaki gurigayga ugama soo tegin uu yidhi kisrata khubs jab muufaa ugama aanan soo tegin uu yidhi gurigayga wallaahi aladii laa ilaaha gayruh ana fii cayshin low calimahu almuluuk lajaaladuuna calayhi bisuyuuf laakiin waxaan ku jiraa uu yidhi maca daalika nolol boqorradu hadday igu ogaan lahaayeen ay igu xaasidi lahaayeen oo igula dagaalami lahaayeen maxay la qalbigaa ii degan uu yidhi raaxan dareemi yidhi gurigaygana jab muufaa ugama soo tegin uu yidhi man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba haadihi hiya alxayaatu طayiba nolosha wanaagsanoo la sheegaya waa middaas qofku hadduu iimaan leeyahay taaco leeyahay qasri dheer milyan dheer hadduu noqdona milyan dheerkiisa isagoo oo ku raaxaysan haddii iimaan iyo daaco uu leeyahay hadduu faqiir yahay laakiin ilaahay uu caabudayo faqrigiisa raaxa ilaahay uga dhig meel kastood gasho ku raaxay kuu noqon iimaanka iyo camalka saalix haddaad leedahay laakiin haddii cibaadada iyo taqwada rabbi lagaa waayo meel kasta albaab kasta waxaa kugu qoran waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa taasaa albaabka kaaga qoran dukaan furo dabaq deg sharikad furo albaabka waxaa kaaga qoran faina lahu maciishatan danka nolol cariiriyaad leedahay meel kasta garaac albaab kasta garaac lidaalika sidaas awgeed aan walaalayaal u soo laabanno daacada rabbi subxaanahu wa tacaala rag iyo dumar waayeel iyo dhallinyaro guud ahaanba aan u soo laabanno ilaahay inaan ku xirnaanno salaadaha jamaacada aanu noolayno masjidka aanu soo camirno musxafka wax badan saaxiib aan la noqonno qur'aanka wax badan aanu saaxiib la noqonno dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala afkeennu mar walbaba uusan ka qallalin oo afkeennu uu ku qoyanaado xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala taasaa raaxa ay ku jirtaa taasaa tuma'niina ay ku jirtaa taasaa dacmi iyo dhadhan aan weligii laga helaynin meel kale ay ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo meesha khayrka iyo istiqaamada iyo ay ku jiraan raaxa alqalbiya ilaahayna waafajiyo subxaanahu wa tacala hada wabillahi towfiiq الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا عافيته ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله صلى الله عليه وسلم